وعوي صومالي موقتها واسكا ولا يريهو ها موقتها دبق وسيرك سبورتس كي عيارها معناها يدليرada محمد عبد القادر علي العمر عرته ودرس تاغي وتاغيري وقرب استاغو ونهيلي وعوي حداد idinka isku haysaan wasiirka idinka iska celiya ani waa ogaa waxyaabaha la isku hayo oo Olympics ay kamid tahay oo ha u soo dhex marina marka waxyaabaha idinka isku haysaan wasiirku nin dhalinyarada taageero oo howlkar weyn ana hadlaayo ani Umar aan figa xigta Umar wax ka halaysan male Umar madaxweynuhuna uu taageeray maantana waa arkay sidii wasiirku soo dhaweeyay kii gaashaandhiga kii sportiska dhalinyarada Umar Artan Soomaali baasaboor diblomaasi dawladda siiso wixii loo inta loo heli karo waa loo heli haddana waxa way wasiirka iyo madaxweynaha iyo waxaan maqlay guri bay u dhisayaan oo hadda guriga loo dhisay la yiri oo lagu abaal marnaayo maadaama la dulmiyay oo nimankii Mareykanka dulmiyeen laakiin waxaan arkay dad badan baa ma taqaanaa dhibash ay ishayaan nin saaxiibkay idaacad iska la hoyo xasan cali geese iyo rag ishayaan mogta wasiirka ragaasaa marka ku afufayo dhahayo saan waaye waxaas ma jiraan wasiirku waxa weeye nin dhalinyaro weeye adeer annagaana taageersan haddii uu jiro qof qabiilka hawiyaha ah oo ani iga daba hadli karo doqona ha soo baxo ani waxa idin sheegay wey Umarna ana adeerkiisa wasiirkuna ana saaxiibkiiya marna ma taqaanaa wax badan sunnahay waxa weeye wasiirku shaqada wasaaraddu si fiican buu u wadaa wixii ay Mareykanna galeen waa la xisaabtamaya oo waxa weeye dawladdu tabarteeda xogaa badnayn mooyee ninkaasu nin ma taqaanaa maanta wax reebanay ma ahayn ana ka aqaan asag marka intaasaan uga hadlayay waxaan rabaa in halka uga hambaliyeeyo Umar Artan oo maanta laakiin hero geesi loo soo dhaweeyay ee magaalada Muqdisho soo baxday stadium Coris stadium Muqdisho u buuxsamay waxaynu sugaynaa xukuumadda ganacsatada Soomaaliyeed aqoonyahanka iyo bulshada rayidka ay kaalinta ay dheelaan waxa weeye Umar maanta asaa lagu tartamaya caalamka dhan baa soo wacayo dhahayo Umar u baahana ha baqlaysay Umar maanta adduunka meel uu sagaarin warkiisu ma jiro waxay lahaayeen wax ka hadlayeen nimanka Mareykanka laakiin Umar wax laga ma hadlayeen waxba loo qabtay xamdi quruxna talisadana maanta wax isdhigto waa la arkay bay talisada caadi ma aha talisadu way shaqaysay marka waxa weeye baashu Soomaalinimo iyo markay joogto arrimahan oo kale waxa la rabaa wanaag iyo sharaf in looga baxo hadda qof wax soo qabtaan xagashada qofkaas umaray ma wax badan ku soo siyaadinaysa xagasho maxay ku siyaadinaysaa ina wasiirka xagagta maxay ku siyaadinaysaa doqoyo waxbana ka gudub arrimahaas qadiyad Soomaali weyn baa la wadaa oo ninka loogu hilinayo ha ka wasaqin ka fogow